السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. intaas kadib walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaanba waxaa mar kale idin leeyahay ramadaan mubaarak. waxaynu ku jirnaa maalmihii aadka ugu fadli badnaay tobankii dhexe ayaan ku jirnaa. intaas kadib fursadda qaaligan ka faa'iidaysano. bishan waa shahrulmakfira, waa bish shahrulixsaan. marka inuu khayrka ku dadaalno oo waxyaalaha sharka waa inaad iska yaraysaan. allah subxaanahu watacaala fii suurati alcimraan wuxuu ku leeyahay nebi maxameda lala hadlayo, waxaa ku tiraahdaa liqul, waxaa ku tiraahdaa nebi maxamed aw nabi'ukum biidinkaga waramaa bikhayrin wax idinkaga khayr badan min daalikum arrinkaas. arrinka laakiin muxuu yahay? aayaddii horey ku cadfan tahay oo maxay ahayd? zuyina linnaasi, dadka waxa loo qoray. aayaddan waxay ka hadlaysaa ka horeysa 6 arrimood ayaa dadka loo qurxiyey. oo muxuu yahay? xubu shahawaati, ya waxay nafta jeceshahay. oo maxaa ka mid ah? kow min annisaa'i, laba walbaniinaan jecelnahay awlaadii caruurtii, wiilashii, gabdhihii waan jecelnahay. waalqanaatiiri almukhantara, waxaan jecelnahay adahab, dahabkeenu jecelnahay. waalfida, fidadeenu jecelnahay. waalkhayli, fardihiia la jecelyahay. walancaami, xoolihaa la jecelyahay. dadka xoolaha dhaqda waad la socodaan, geeleyda iyo dadka xoolaha leh, xoolaha aada bay u jecel yihin. marka nafta waxay jeceshahay waxyaalaha shubah, maaragtay zuyina linnaasi. nebi maxameda marka waxaa la yidhi u sheeg sala allahu calayhi wasalam in arrinkaas uu kaga qeyr badan yahay arrintan soo socoto. oo maxay tahay? liladiina kuwii itaqow ka dhowrsaday, alla ka cabsaday, oo cinda rabbihim alla agtiisa, kuwii alla ka cabsaday maxay leeyihin? ilaahay agtiisa waxay ku leeyihin cinda rabbihim jannaatun, jannooyin, tajrii ay dareereyso min taxtihaa, hoosteeda. min taxtihaada guryo iyo beerana waa la dhaha. min taxtihaa dareereysaa hoosteeda alanhaar, webiyaal, 4 wey. webigii malabka ahay, kii qamriga ahay, kii casalkii malabka ahay, kii qamriga ahay, kii caanaha ahay. ladatu lishaaribiina, ilaahay subxaanahu watacaala ku magaa. marka webiyaashaas waxaa usii dheer walahum makfira, iyo dembi dhaaf ilaahay ayuu ku tilmaamay ilaahi subxaana watacaala aayaddaas kale. khaalidiina xaalay yihiin kuwo ku waaraya fiiha gudaheeda. koo waxay leeyihin aa yidhi kuwa alla ka cabsade jannooyinay leeyihin. jannooyinkaasu khaalidiina fiiha ay ku waarayaan. waxay kaloo leeyihiin wa aswaajun mutahara, wa aswaajun dumar oo mutahara ee ka daahirsan, oo daahiriin ah, oo maaragtay waxay daahir ka yihiin xaydkii iyo nifaaskii, dhalmadii iyo dhiiggii caadada ayay ka yihiin maaragtay daahir. iyo waridwaanun, waxay kaloo helayaan raalli aansha allah subxaanahu watacaala. waridwaanu min allah, wallaahu alle wuxuu yahay abadan wa ajalan basiiran, midkii arka bicibaadihi addoommadiisa. runtii waxaa lagu sheegay hadda alla ka cabsato, jannooyinkaasaad leedahay ood ku waarayso. dumar aayaad ka helaysa aada leedahay, iyo ilaahay subxaanahu watacaala raalli ahaanshiisa. wallaahu basiirun bilcibaad. xadiiskan marfuuca imaam bukhaari soo saaray wuxuu tilmaamaya can abi saciid alqudri radi allahu qaala wuxuu leeyahay qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam, xabiibkeena wuxuu yidhahda in allaha yaquul, allah subxaana watacaala jala sareeya wuxuu leeyahay liahli ljanna, wax ku oranaya yaa ahluljana, dadka ahluljanno, yaquuluuna markaasay leeyihiin, ilaah u dhawaaqayo wuxuu leeyahy dadka ahlujannow, markaasay leeyihin yaquuluuna labeyka rabbanaa wasacdayk,
ربي وكم قل وكسوء أجيبني فيقول جل وعلا وحليها هل رضيتم إذا راضي النقم فيقولون وحي أورانيان dadkii ahlu jannaha wamaa lanaa laa nurdii maxaana raalli u noqoweynaa rabbiyow maxaynu raalli u noqonay waqad acdaytanaa waxaadna siisay maa lam tucti axada waxaada dadka bini aadanka siinin oo min khalqig waxaada dadka bini aadanka siinin ayaadna siisay maxaana raalli u noqonin fayaquulu jala wacalaa wuxuu leeyahy anaa waxaan idin siiyey afdal min daalika midaas mid idinkaga fadli badan qaaluu waxay leeyihiin yaa rabbi rabbigeeniyow wa ayu shayin afdal min daalika shaygee ayaa ka fadli badan midkaas fayaquulu wuxuu leeyahay jala wacalaa waxaa idiin xalaal noqotay raalli ahaanshahaydii weligay marka runtii waa fadli aada u weyn oo qofka allah subxaanahu watacaala si marka inaynu ku dadaalaan rabaa alla inaynu ka cabsano markii lagu dhaho alla ka cabso macnaha dhihin dadka qaaraa waxay jees ka dhigaan ilaahay baana lagu cabsiinaa iyo waxyaalo noocaasay sheegaan arrinta noocaas arrin sahlan maaha diinta lagu jeesjeeso ma sahlana runtii marka ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala aniga idinkaba walaalaha meel kastoo joogtaanba inuu ilaahay noogu daro kuwaas وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.